بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 249 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. رواه أحمد والطبراني والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، ما أنت تاريخ الإسلام كي تهي لبي طبانكي بشي ساقالات رمضان سنة تكون 440 يكو إسلام مركانا وافقسان shantii bishii shanaad sanadka 2020 waxaanu ku jiray mawaadiicdii ama axaadiistii aanu ramadaanka iyo fadaaishiisa aan u khasisnay qaybtiisii fadaa'ish ramadaanka qaybo badan baan kaga hadalay, fadaaishiisa aan ka hadalay, waxyaabaha aan jabinin baan ka hadalay, dadka asxaabul acdaarka ah oo ramadaanka loo ogol yahay inay afuraan ama raashin bixiyaan ama qadeeyaan aanu ka hadalay. uu qaybo badan yahay ramadaanku, kolba marka wixii Ilaahay naga karsiyaan ka hadlayna. hadda waxaanu ku jiray fadaaishiisii. xadiidkan xadiidkii ka horreeyay shalay darsigeena waxaan qaadanay ciqaabta uu mudan hayo qofka ramadaan asagoo cudurdaari waxba lahayn iska afuro. laba qaybood bay isugu jiraan: inuuba soobinba bishii ramadaan waa ciqaab uu mudan hayaa, iyo inuu intuu soomo afurkii markuu afurayo uusan xaqiiqsanin inay waqtiga afurkii la gaadhay. afurkii oon waqtigiisa la gaadhin oo qoraxdoon dhicin iska afura oo maaragtay tasaahul sameeya ciqaabtu la kulmayo. maanta waxaanu qaadanaynaa fadaaishii jaanib ka mida ayaanu qaadanaynaa iyo fawaa'idda uu ramadaanku leeyahay. cabdullahi bin camr bin caas xadiidkan waxaa soo saaray imaam axmed kitaabkiisa musnadka iyo tabaraani mucjam alkabiir, xaakim mustadrakiisa, bayhaqi shucab aliimaan iyo keyrkood. sheekh albanina wuu saxiixinayaa saxiixu jaamic sagiir iyo saxiixu tarkiib watiri labaduba. oo saxiixu jaamic sagiir raqamka xadiidka uu yahay 3882. saxiixu tarkiibna waa 984. laakiin xadiidka waa mutakalamu fiiha, culamo ayaa maaragtay dacfi ku sheegeen, laakiin xadiidku sida raajic waa xadiid saxiix. nabiga calayhi salaatu wasalaam asagoo ka hadlahaya fadliga siyaamka, soonku uu leeyahay laba arrimood oo soonka la helo ayuu nabigu ka hadlayay: soonka iyo qur'aanka. labadoodaas faa'iidada ay leeyihiin. wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam: assiyaamu soonka iyo walqur'aanu qur'aanka yashfacaani waxay u shafaaco qaadaan lilcabdi addoonka yowma alqiyaamati, maalinka qiyaamada. soonka iyo qur'aanku addoonka ayay u shafaaco qaadaan. cabdi baa la sheegay, amadana waa lamid wey, bimacnaa rag iyo dumarba wey. muxuu dhihi marka? yaquulu siyaamu, soonkii baa hadlay oo wuxuu dhihi: ay rabbi, rabbigayow, innii anuu manactuhu waan u diiday ninkan adacaama cuntadii iyo washahawaati, shahawaadkiisii iyo wuxuu jeclaa ama maaragtay galmadiisii reerkii wixii lamidka binnahaari maalinka. ee fashaficnii fiihi, allow iga aqbal shafaacadan aan u shafaaco qaadahay, allow iga aqbal. wayaquulu lqur'aanu, qur'aankiiba taa waa soonkii weeye. wayaquulu lqur'aanu, qur'aankiiba wuxuu dhihi: rabbi yaa rabbi, rabbigayow, manactuhu waan u diiday annawma hurdo bileyli, habeenkii uu seexdo. habeenkii baan hurdada u diiday. caawa dhan salaatuleyl buu tukanayo, anuu i akhrinayo qur-aanka. fashaficnii fiihi, allow iga shafaaco aqbal, shafaacadayda aan u qaaday. fayushafacaani, waa laga aqbalhayaa shafaacadoodi. yushafacaan, marka shafaacadoodii ayaa la aqbali weeyaan. fayushafacaan, waa laga shafaaco aqbalhayaa. ikhwat alislaam waliimaan, markaan fadaaisha aanu ka tagna dhinaca kale, faa'iidada aanu dhihi karaa iyo fadaa'il isku jirtaba, nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu noogu caddeeyey soonka iyo qur'aanku waa min acmaali saalixaat bay ka mid yihiin, acmaasha saalixa qofku samaynayay ka mid yihiin. labadoodaas si geesaana wuxuu nabigu u baraarujiyey soonka iyo qur'aanku inay saaxiibkoodii u shafaaco qaadayaan qiyaamada. labaduba way hadlahayaanoo soonkiiba wuxuu dhihi: rabbiyow, markuu adduunka joogay cuntadii iyo shahawaadkiisii baan maalinkii u diiday. cuntada uu cuni lahaa iyo cabitaan iyo waxaasoo dhan iyo shahawaadkiisii oo reerkiisii maaragtay u bannaanaa
iyo wixii kale maladaadkiisa iyo wixii u macaanaa oo shahawaadkiisa u jeclaa iyo wixii dhammaan maalinkii u diiday ilaahayow iga aqbal shafaacadan iyo ergadan aan wado quraankiina wuxuu leeyahay aniguna waxaan u diiday habeenkii hurdaan u diiday hurdadii baan anna habeen oo dhan u diiday oo way akhrinayo qiyaamul layl ayuu igu tukan jiray ilaahu anna iga aqbal fayushafa'ani khulaasadii iyo nuxurka xadiidkan waxa su'aal ka imanaysa soonku waa shay macnawi ah marka iyo quraanku way hadlayaan waa hadda labaduba hadal ba ka muuqda meesha ala xaqiiqati ma ku fasirayna in la awla ma banaano ilaahayna awood buu leeyahay in allaha maartay in allaha qaadirun ala kulli shay way shay kasta ilaahay subhanahu wa ta'ala in allaha ala kulli shay'in qadir shay kasta awood buu leeyahay inuu sidiisa marka maartay uu soo doono ka dhigo idan soonku inuu istaago jasad loo yeelo oo qof hadlaya laga dhigo oo uu hadlo quraanku inuu hadlo ilaahay waxba lama oo idan qiyaamada bay soo istaagayaan hadlayaan mar qaalu antaqana allahu alladhi antaqa kull shay yani waxa naga hadliya allah shay kasta ka hadliya markay gacmihii jirka hadlaan idan soonku inuu intii shakhsi laga dhigo carab loo yeelo uu hadlo qiyaamada oo u doodo qofkii maartay soomi jiray quraanka inta carab loo yeelo shakhsi laga dhigo uu dhow uu hadlo oo u doodo qofkii akhriyi jiray baan labaduba xadiidka ka qaadanay ilaahayna waxba lama waxa su'aal iman marka quraanka iyo soonku inay quraanka iyo soonku inay shafaaca qaadayaan waan ogaanay waa xadiidka noo cadeynaya haye quraanku marka ma ku maqraati kici kara qofkii aana ku dhaqmin naam القرآن حجة لك أو عليك والنبي عليه الصلاة والسلام قرآنك إما إنه كودوضو وإما إنه كدعوية لبضا مدوي القرآن حجة لك أو عليك إذا هدات كل قنتي وواجبات كيسي يا أوامرتي سيات قادتي وحكار بينات كهدي وكودو هي أما هدي أتكهاجرتي تلاوة وعملا با عمل فل يا آخر ما أتكهاجرتي حجة عليك وكون نقنايا لوير مارت وكودو مدع وكون نقنايا إذا إخوتي في الله بشا بركة سنة نكوشر صونكا يا قرانكا سي إلهي سبحانه وتعالى إهلك أشفع عقادها يعني إلهي ونوغدره أنه صونكا يا قرانكا أن إلالين صونكا الله إلاليو يصنقن وكليو إنا نكسو منه انتذي يعبتانك وإنا نكسونا وح الله لوحي محرمات هذه غيبة يحنقته iyo haday indhaha ay noqdaan iyo haday dhaguhu noqdaan iyo intuba inaan ka soonno ayaa loo baahan yahay oo iska ilaalin xumaatada wanaago dhanaan u saciyeeno oo ku dadaalo quraan akhriskana habeen iyo maalin ba aanu badino ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo maartay kuwa ay u shafaac qaadayaan quraanka iyo soonka u shafaac qaadayaan fadaaisha soonku way farabaday ma wada koobi karo waxa kamid ah inuu nabigu alayhi salaatu wassalaam as-siyaamu junnatun وهو حصن من حصون المؤمنين أيها النبي عليه الصلاة والسلام صنك وقاشان وي وانا الدربي يمانع من حصون المؤمن قفك مؤمن كحصون تيسيو ما ارتح واجيز تيسيو موانع ذا نارتك إلى النسو كميتي هاي سيدو كروح النبي عليه الصلاة والسلام الصيام جنة من النار صنك وقاشان أيها صاحب كيس النار تؤغي هاي كجنة أحدكم من القتال سيدا أحد كين قاشانك ودقالك إسغدقو انتبا الصيام جنة وحسن حسين من النار آد بأفر بديهين ماركتي صونك فضائشيسا يوحيابها كسا أرولي لما كوبكر إذن ما أنت كو أكيننا فضائش أنه كهد ليني حديث كاسا أنه ما أنت كو أكيننا كدي وحنو قد بيننا جوانب تكالي وحيابها بورية يفوائد كلا ورمضان كلها هي يوحي لغا فايدة سنة إن شاء الله تعالى وقد بيننا هالمربع حديثة كعلن هي الحديث 249 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان رواه أحمد والطبراني في المعجم الكبير والحديث صحيح هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.